hay-adda horumarinta hilaal waxaa la aasaasay bishii maaj 2015 waxaana aasaasay oo dhidibada u taagay dhalinyaro Soomaaliyeed oo hadafkoodu yahay in bulshada laga hormariyo dhinacyada caafimaadka, waxbarashada iyo la dagaalanka jahliga. hay-addu waqtiga ay jirtay waxa ay ku guuleysatay hirgelinta iyo qabashada howlo muhiim ah kuwooda aanay bulshadu marnaba ilaabi doonina. waxaa ka mid ah in iskuulkii Sheekh Muuse Cigalle oo ku yaala deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay dib howlgelisay hay-addu iyada oo dadka deegaankana ku bogaadisay inay ka faa'iideystaan fursadaasi oo ay wax ka bartaan iskuulka, iyada oo mas'uuliyiinta hay-adda Hilaal ay maanka ku hayaan muhiimadda ay leedahay wacyigelinta. ayaa deegaankaasi waxaa gaaray madaxa waxbarashada ee hay-adda mudane Maxamed Axmed Cabdixakiin Ilkacse, kaasi oo bulshada la kulmay kuna dhiirigeliyay inay u jihaystaan dhinaca horumarka oo ay ka faa'iideystaan dadaalada ay wadaan dhalinyarada isu tagay ee ku midaysan Hilaal. wuxuuna halkaasi uga qayb galay xafladii furitaanka sanad dugsiyeedka 2015-2016 oo abaalmarin lagu guddoonsiiyay ardada kaalmaha hore ka galay fasalada iskuulka sanad dugsiyeedkii 2014-2015. mar kale wuxuu booqday gabagabadii sanad dugsiyeedka 2015-2016 wuxuuna ka qayb galay xafladda xiritaanka sanad dugsiyeedkaasi waxaana abaalmarin la guddoonsiiyay ardada kaalmaha hore ka galay fasalka iskuulka sanad dugsiyeedka 2015-2016. sidoo kale xafladda waxaa ka qayb galay dhalinyaro hablo iyo wiilal isugu jira oo jaamacadaha xamar dhigta una dhashay deegaankaasi, iyaga oo halkaasi ka soo jeediyay hadallo qiimo badan oo ku saabsanaa waxbarashada iyo faa'iidooyinka ay leedahay. waxaana ka mid ahaa Sacdiye Maxamed Cali Caadle oo ka hadashay kaalinta dumarka ee waxbarashada, iyadoo halkaasi ka jeedisay khudbad aad loogu riyaaqay oo xamaasad gelisay dhammaan ka soo qaybgalayaashii xafladda. kunahantii anaga haddaan deegaankan Ceel Baraf wax ka maqan ma jiraan. waxaan haysanaa wadaadeen masaajidada wax ka akhrinayay waa fadli Ilaahay na siiyay. waxaa jooga macallimiintii khayr badan Allah siiye. hadda waxaaba sii dheeraad ah iskuul dadka wax bara. يعني رهانتي هدي أن المها لا مشغولين بنك وناكسن قالوا هم مشغولين وحاسوا بحي جانب كلا جانب كحر صد كلا يكفي ذي سنة وقتي مركب وحاسكو دار مينا عروضة إن جانب كوناكسن وحلو كفي ذي هدي هذا الوقت جيني ذيك جيني أو حبر شيء هذا جيني نقادك جيني كنا وحبرني وحباش نطلع في النقي معلمين حق أي قبصنا أو بنك وناكسن ما نعك وكذينا وحاسكو دار مينا إن شاء الله إن أرضي وحبرشون خاصة الدور يعني قبتها وحبرشون كليين gabar wax baratay qacdas qaata gabar wax barashay. sidoo kale waxaa halkaas khudbado Carabi, English iyo Soomaali isugu jira ka soo jeediyay qaar ka mid ah ardayda. dhalinyaradaasi ayaa markii ay soo dhamaatay xafladii ay kaalinta weyn ka geysteen waxay booqasho iyo damaashaad u aadeen deegaanada ku dhow Ceel Baraf, gaar ahaan kiliga dhismihiisu ka socda halkaasi. si dib loogu dhiso iskuulka Sheekh Muuse Cigalle ee deegaanka Ceel Baraf waxaa hay-addu ay bilowday olole dib loogu dhisay iskuulka iyada oo heshay ballanqaadyo dhowr ah oo arintaasi fududeynaya inkastoo wali aan lagu guuleysan dhismaha iskuulka. sidoo kale hay-adda Hilaal waxay waxbarasho ka bixisaa arday ku nool magaalada Muqdisho oo gaaraya 80 arday oo 30 ka mid ay yihiin gabdho halka 18 ka mid ay yihiin agoon. sanad dugsiyeedka 2015-2016 waxaa imtixaankii ugu dambeeyay u fariistay 72 arday halka 8 arday ay waxbarashada ka hareen sababo iyaga u gaar ah darteed. gudoomiyaha Hilaal Xuseen Muuse Shiraabe ayaa kormeeray qaar ka mid ah dugsiyada ay wax ka bartaan ardayda si uu ugu kurkalo xaaladda waxbarasho ee ardayda. gudoomiyaha ayaana la dardaarmay ardayda la jeclahay inaan la wadaago ardayda inay horumar ay hiigsadaan, inay waxbarashada hiigsadaan, halkooda ay ka sii wadaan ay dadaalaan. waxay wax ku baranayaan waa dad walaalahooda wax laga soo qaaday inaanay beerdaroobin waxyaabahaas la soo qaadayo oo meesha ay ku baxayaan ay noqoto meel munaasab ah oo wejigii loogu talagalay ay ku baxdo. qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda hay-addu ay bixiso waxbarashadooda ayaa si dareen leh u muujiyay in dhalinyarada leh fikirka lagu aasaasay Hilaal ay ugu fadhiyaan kaalin muhiim ah oo aanay ilaabi doonin iyagoo ka mahad celiyay deeqda waxbarasho oo caruurtooda ay helaan. magacayga waxaa la yidhaha Maxamuud Fiidow Maxamed. waxaan marka intaa ka bacdi waxaan ka mahad celinayaa waxbarashada caruurta inta muslimiinta ay nagu caawisay dhammaan dadka tabarta yar oo taagta yar oo anigu aan ka mid ah gacmooda. waxaan ka codsanayaa in dhammaan sidaas loola tookuleeyo oo aniga iyo wixii ilamadaba la caawiyo ilmaheennana halka ay hadda joogaan laga sii taabageliyo la gaarsiiyo
meesha hiddiilada oo ummaddu ay wada hiigsanayso waxbarashadu waa mugdi waxa kaleento waxbarashada haddii la helo laakiin waa iftiin. bismillahi raxmaan raxiim. ugu horreyn magacayga waa ibrahim cali raage. dhammaan waxaan salaamaa hay-adda hilaal foundation. mahad aan la soo koobi karin oo u celina insha allah. alxamdulilah waxay ii kifaalo qaadeen aniga gabar aan dhalay waxbarashadeeda ii kifaalo qaadeen. waa mahad aanan soo koobi karin ugu celina insha allah mar labaad. salaan aan la soo koobi karna waan salaama. alxamdulilah kan ajir allah siiyo khayr allah siiyo. alxamdulilah waa kaas. magacayga salaada cabdiraxmaan cabdulle. wiilkayga waa fiican yahay waxbarashadiisa na waa ku faraxsanahay wixii waxa ii barana qaar allah siiyo. aabihiis nolol iyo geero midna kuma hayo. waxbarashadiisa waxaan ku leeyahay hadda dadka waxaan ku leeyahay waxbaraya macnaha waxbarashadiisa u baahan waa la dhacay. maya hadda maasha allah waxaan ku leeyahay macallimiin fiican aan faraha ku qabatay waa maxay tooda insha allah intii hore wax badan waxaan ku leeyahay oo karweyn. ay xabiib maxamuud jilcow haye wiil wax waxbarashada ay dhigto awoodna uma lahayn maaragtay dadka dhalinyaradii isku soo darato soo abaabusha khayr allah siiyaan leeyahay. xubno wax ka bixiya qarashaadka ay wax ku bartaan carruurtaasi Soomaaliyeed ayaa ka sheekeeyay waxa ku dhaliyay inay qaataan qayb ka mid ah mas'uuliyadda wax lagu barayo ubadka Soomaaliyeed ee danta yar. bismillaahir rahmaanir rahiim. alxamdulillahi rabbil aalamiin. salaatu salaam ala rasuulina Muhammad sallallahu wasallam alayhi. ama bacd ilaaha mahad iska leh oo maaragtay soo keenay meeshan ilaahaygaasaan ku mahadinaynaa. thumma maanta barnaamijkan waxa waaye mu'asasatul hilaal waxyaabihii maaragtay waxqabadkeedii iyo garabgalkeeda waaye. marka mu'asasadu waxyaabahay qabatay runtii ilmo yar yar oo ay iskool geysa ayaa jira ilaa 70 iyo dhowr gaaraya. marka haddana waxay rabtaa inay horu sii wado. arrintaasna waxaa ku caawiyey dad maaragtay muxsiniin ayaa ku caawiyey. dadkaas waxaan leenahay ilaahay ajar ha siiyo. dadka dhimanna ha ku daydaano say u sii bataan waxqabadku. qaar ka mid ah waxgaradka Muqdisho oo ka hadlay dadaalada hay'adda Hilaal ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed aanay ilaabi doonin abaalka ay u galeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee hirgeliyay howlaha muhiimka ah waxaana ay ku dhiirigeliyeen in hawshaasi ay sii wadaan. anigoo ah Shamuuq Cali Maxamed waxaan salaamaa dhammaan intii magacayga taqaan ahlada salaan kadib waxaan rabaa inaan u sheego hay'adda Hilaal oo ah hay'ad cusub waxqabadkeeda iyo waxtarkeedu aad iyo aad u fiican yahay. waxa wada rag dhalinyaro rumaantii si fiican aad u wanaag badan ayay bilowgeeru tahay. sidaas darteed waxaan ka warqabnaa in rag badan oo dhalinyaro oo waxbarasho u baahan oo ciyaal inay waxbarto taqriiban ilaa 77 qofood gaaraysa. sidaas darteed waxaan u sheegaynaa ummadda jecel horumarka bulshada ahalkooda arxibadoora jecel arrintaas waxay ka qaadan karaan oo arrintaa ku saabsan oo saacidaada inay ka qaataan sidaasaan u soo jeedinaynaa. waa arrin wanaagsan waa arrin ubadka wax taraysay la higsa kara mustaqbalka. sidaas darteed waxaan idinku guubaabinaynaa cid alla iyo cid jecel in arrimahaas bulshada oo horumarka inay ka shaqeyso in hay'adaas la soo xiriirto. waxqabadkeedu aad iyo aad uu noo cajab geliyay. waxaan salaamayaa ilmaha hay'adda Hilaal hogaaminaya ilmahaasoo wax badan dadaal badan kuftina badan u soo galay hay'adaas inay ilmaha oo iska liita oo dhibaatada qaba oon dadkoodu wax u geli karin waxbarasho ay u raadiyaan. ka hor marka ay gelayeen hawshaanne odayaashoora miya u yeeray kala tashaday sidii wax la yeelaayo dadkan dayacan oo duurka yaalla waxbarashada aan haysan gargaarka aan haysan
horay ugala tashaday muxuu ahaay odayaashuna waa hay-adduna waa hay-ad weynoo waxaa waaye iida muxuu ahaay ilaaha lagu tiirsan yahay la cuskan yahay marka waxaan codsanaynaa fadhiyo badan ka bacdi codsiyo badan ka bacdi waxaa la isla gartay ilmahaasu inay hawshaas hoggaamiyaan intay dadaali karaan dadaalaan annaga naftirkaynu waxaan la qaban karna aan la qabanno annagoo odayaala oon hadda meel aan ku tiirsanahoo kale iyan jirin iyakuna gacangedis waaye gacangedis waxay ku yihiin meel walba oo un wax laga heli karo inay wax ka helaan dadkaas dayacanno ay u kaashadaan iyakuna ay kabaan ay diyaar u yihiin waxaan rabnaa marka inta muslima oo wax muxuu ahay amba ilaahay wax siiye muslim gaalba waxaa waaye wax waa isla dhiibaan inta wax dhiiba karta oo ilmahaas wax ku sadaqaysa karta oo dadkaas dayacan muxuu ahay wax ka qaba karta oo muxuu ahay wax ka geysa karta inay wax ka geysato annagune tabartaynu intay la eg tahay waa ka daba dhacaynaa waana ka daba haataa boqlayhaynaa ilmahana intaan u kaalmay karna waa u kaalmaynaynaa inti kaalme ay ka helayaanna waana u duceyhaynaa waana codsanaynaa weliba codsi oo kale muxuu ahay weyn aan jeedsanaynaa in ilmahaas qofti soo garab geli karta soo garab gasho meesha ay wax ka heli karaan oo albaabka ay riixi karaanna ay uun riixaan ilaahayna ha u fududeeyaan leenahay meel dhib yarna allaha ka siiyaan leenahay inta wax la baraayana allaha barakeeyaan leenahay ugu dambeyn Ibraahim Cali Hiloole oo ah nin naafa ah kana mid ah waalidiinta caruurtooda wax laga bixiyo ayaa Hilaal ereydan ku amaanay hambaliyo ugu horeyntii Hilaalay halyaygii noo hiiliyaa tahay hubaashi had iyo jeer noo hiilisaa tahay ubadkeenna oo haray himigelisayaa tahay hilaaciya aqoontoo lagu soo hirtaa tahay hubaashiya aqoontoo lagu soo hirtaa tahay haybaddii adduunyada ilaah noo hibeeyo lagu soo hirtaa tahay waana kugu hawoonnay allow hoosa kuu naqin waana kugu hawoonnaye allow hoosa kuu naqin haddayba howlgaashaay hiilaal inaan horu marnaan hubaa haddayba howlgaashaay hilaal annagu inaan horu marnaan hubaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu